إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان أتعسيين إن جودهان فالكي وحش لماذا لها شركة دعي مقالة كسمايو ويكون انتين ضد بدن كنا داوعمين إنكسي بدن خسارنا في مال بنا وسوق قارسية فالكاسو أفريين من حيال عدو جودة ودباتكوا ومدى الصوماليات قارهان يادون كمان waxaan dhimashadu ahayd 26 qof dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelkii wax ka dhaceen dad Soomaali oo jinsiyado wata dawlado kala sida 3 qof oo Kenyaana 1 qof oo Canadian 1 qof oo British watay 2 Maraykana iyo 3 Tanzaniana dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada waxaa kale oo dhaawac jiray 56 qof iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyada kala wata gaar ahaan qaar aan Soomaali asalkooda ahayn oo laba shiinays ay ku jiraan oo kalluumaysata dadkan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo Allah ha caafiyo dadkana waxaan ka codsanaynaa in Ilaahay u soo bariyaan تعسيلاس كدب إلهي بانا اسكاله سبحانه وتعالى نصيب كاس حنوم هاد علينا رب العزة سبحانه وتعالى ويسوء كقدري إلا بدباديو وإنت عصوا النفوض ميشا لغا بدباديو وما أنت وقت ياسكوبا إلا وسوء حديده صوابته وها رب سبحانه وتعالى كذب وحان ربنا نمهد عليو عيدا كأمني جبلان وأنا أرنكريو وحي قبتين شقو هذه مهمة يجي سراكيشود تاسو سامح لي يلا أنا هاي قرح هري وبدنان شري وديان كان كوبدنا إن هذا المدة أي كوسا أفشرين أي سببتي إني إلهي dadnimada uu siiyay iyo geesinimadooda iyo khibradooda ay shaqada u leeyihiin inay ku badbaadiyaan muddo yar ay ku soo afjaraan iyadoo ay ahaayeen 4 qof waxa fuliyay falka hal mid oo qaraxa watay oo gaariga qaraxa isku qarxiyay 2 meed oo la hayo meednimadooda iyo hal nin oo dhaawac lagu hayo saddexdaas ay ahaayeen nimanka dagaalamaya ee ku jiray waxaa Ilaahay mahad celin aan kala ugu waxaynayaa iyadoo ay ahayd shalay maalin Jimcaha oo dad aad u tiro badan ay galabta hoteelka cusub oo la xiiseynay ay u joogeen sida khasaaruhu uu yahay iyo sida ciidanka amnigu ay uga qayb qaateen ay badbaadada inta alle ku timid Ilaahay mahadiisa ka sukow inay ciidankuna aad ugu mahadsan yihiin dadkuna aan isleeyahay wax badan bay ka qayb qaateen waxaa kaloo mahad celinayaa cid kasta oo nooga soo tacsiyeysay oo arrintaas yada nagala qayb qaadatay murugadaana nagala qayb qaadatay inta markaan ka baxo waxaan rabaa inaan diro fariin amni ah Rex maayo way ku cusub yihiin falalka sidan oo kala waxaan rabaa inay ciidamadu sameeyaan foojignaan dheeraada oo ay aad uga digtoonaadaan falalka argagixisoonimo ee mar walba ay isku dayayaan inay sameeyaan iyadoo weliba ay ka faa'iideysanayaan xilligan doorashooyinka iyo siyaasadda lagu jiro waxaan rabaa inay digtooni badan la qaato hay'adaha amnigu ay shaqadooda laabaan shacabkana waxaan farayaa 2 xaalo qodobka koowaad oo ah inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay kala shaqeeyaan sidii horeba uga shaqeynayeen xogta iyo marba wixii ay helaan ee dareenkooda qodobka labaadna inay tahay inay ka fogaadaan meelaha ay wax ka dhacayaan hadday wax dhacaan meesha wax ka dhacaan inaan lagu soo didin oo sida shalay dhacday oo kale inay ciidamada ku cuslaato
shacabka laftiisa kuwa banaanka imanaya inay badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan sababtoo qof waliba meeshii oo dagaal ka socdo oo qarax ka dhacay wuxuu rabaa intuu aado inuu isagu bal ilaada ka soo waran maxaa la keenay iyo maxsay wuxuu jiraan shacabka marka waxaan rabaa inaan uga digo inaynan ku kadsoomin meelaha wax ka dhaceen inay had iyo jeer intay ku soo didaan ayna meesha aadin ee ay ku ekaadaan goobahooda oo warka ay ka sugaan meelaha cidda ay khusayso waxaa kaloo rabaa inaan u sheego cadowgaani sidaan hore u sheegay ma aha cadow soomaali cadow u ah jubbaland col u ah dadkan waa cadow caalami ah oo u baahan in la iska kaalmaysto wax ka qabashadiisa iyo la dagaalankiisa maanta dadka meesha ku dhintay cid walba isugu jireen ma aha oo cadow aan naxayn taa waxaan leeyahay markaa beesha caalamka ha la iska kaashado oo ha noqdo dagaalkaasi mid inaga wada dhexeeya oo sidaa hadda aan u soconay iyo sidaa hadda loo dagaalamaya si ka bedela insha allah in loo dagaalamo waxaan u baaqayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer Kismaayo dadkaas soo dhaawacmay waxaa aad iyo aad ilaahay waan ugu shukriyayaa xalay isbitaalka oon tegey waxaa nagu filaaday xalay inta badan dhiiggii horey bangiga kaydka u yaallay inay dadku ka qayb qaataan dadkaas dhiigga ay u baahan yihiin oo shacabku ay tagaan iyo mas-uuliyiintuba bangiga dhiigga ku yaalla isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo si ay dadkaas ugu huraan oo dhiigga laga qaadaay waa waxa qofku wuxuu bixiyo ugu fiican sababtoo xalay haddii dhiigga qaarkood la waayi lahaa way dadkaas la badbaadiya faraha badan mayna badbaadeen markaa shacabka iyo mas-uuliyiinta waxaan farayaa inay tagaan bangiga dhiigga isbitaalka oo halkaa ay u suurto gashay inay dhiiggooda huraan haddii ilaahay dhaaf ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo beesha caalamkana waxaan ugu baaqayaa dadkaas in gurmad lala soo gaadho wax alaali wixii loo qaban karaan in loo qabto dad dalleeya kuwa agooma ka tegay reero baabaya waxaan rabaa tacsidii inaan si gaar oo xuso waan dib ugu noqdo waxaa ku jiray laba nin oo qof oo mas-uuliyiin ah mid wuxuu ahaa nin xildhibaan hore ahaa meelaashuuriya haddana musharax u ahaa madaxtinimada jubbaland ninka kalena wuxuu ahaa nin musharax fadid la yidhaahdo oo wasiirka beeraha ahayd hore ganacsiga ahaa ee maamulka jubbaland dowladgoboleedka jubbaland iyo ficlan xaaskiisii oo la dhimatay badan ahay gabadh ay si gaara noo taabanayso ummadda soomaaliyeed ay u taabanayso gabadhaas geerada ay la soo noqotay wadaniyadda ku jirta dareenkeedu siduu ahaa iyo sida ay u cabiraysay ilaa xad ilmaheedii xataa intay la soo noqotay ay ku lahayd anigiiba af soomaaligii ka tegay haddaan anigu ka sii tahay ilmahaygu say noqonayaan gabadhaas tacsiye gaaran iyadana u fidinaya waxaan leeyahay qoyskaas ilaahay idinka dhigo kuwii fardowso oo isugu geyn lahaa ilaahay idinka dhigo kuwo maqaamkooda oo meel fiican geysin lahaa iyagiyo inta kaleba marka ummadda soomaaliyeed ee beesha caalamka waxaan faraynaa baaqa ugu soo jeedinaynaa inay dadkaas la gaaraan waxay la soo gaari karaan waxaan rajaynayaa falkaani waa mid nagu cusub hay-adaha amniguna waxaan soo saari doonaa ka jubbaland ahaan bayaan oo aan kaga hadlayno falkan dhacay siduu u dhacay meelaha wuxuu sababsanayo asbaabaha keenay iyo wax badan oo iftiimin doona haddii ilaahay waxaan rabaa inaan bayaankaas ku soo caddayno si dhaqsaar aan u soo saarno xaaladaha jira iyo arrintaani see u dhacday iyo waxa keenay iyadoo lagu yaqaanay magaalada Kismaayo iyo jubbaland guud ahaanba amni oo uu jiray amni fiican iyo istiqraar ka jiray dadkana ay wax cusub ku tahay arrintan oo kale maxaa sababay yaa ugu ku lahaa xaggee buu ka yimid insha allahu ma rabo maanta inaan ku daro laakiin waan ka soo saari doonaa qoraal iyo bayaan cad baan soo saari doonaa kaasaan idinla wadaagi doonaa mar labaad iyo mar saddexaad meydka aanaasan dhaawacyada waxaan rajeynaynaa inaan qaar maxamar u diro wana nairobi u diro wixii isbitaalka Kismaayo xalay aad waxaan ugu mahadcelinayaa mar labaad dhakhaatiirtii ka howlgalaysay isbitaalka Kismaayo iyo wasiirada meesha caafimaadka
وحالة ونسيج كسوة شيء وعنا جينا إن شاء الله وأن كان أنصنا ومضى صوالينا كل عليه سمر يدان الله يكسي أنا أدعو عنا والسلام عليكم أنا أدعو عنا واحد إلي وعلى وجود لك أبيانا واحد لما يقالوا عن السماء العليم وأهلين قدامه ما إلهينا أن نصحب سنة على وقانا عن قالوا قسوة لتسنة داد كان لنا أنا أصنه أنا ندعو عينه أنا سمح حريصا